بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلوا على حياة الشرف له. وهو حيسة قولي أيولي حيسة قولي. وعدوني سابق دونا نكي حسن الشيخ محمود ومنافق ويا مدحويني هو يقلق الصومالي يا هاتري. أيها هاي والغصو صاري أسوأ كبها في كسية. بنت الله لو تشين ميو دولة دوار دقاقبي أبقال وار دقاقي وادورو وادودي waxaa ka dambeysay inuu xalayso warqad inta leeg soo qoray asagoo kala af ku sida kala ninkii sida Abdullahi Dariya oo shaqay heesti ahayd darabi lanayda shalay diri islanayda maadana ku dabado damba ku rusheegte dayla ruuxda daba damin ba u yaale eestaas oo Saciid hawshadan soo dhawaada waa farqayn doonaa odaga xasan qayrada ka soo yeedhay cabashada ka soo yeedhay madaxweynihii hore ee Soomaaliya munaafiq xasan sheekh maxamuud iyo waxa uu maalinta dalacsan yahay iyo sawirka uu raadinayo inuu Saciid Abdullahi Dariya la galo waxa kalifay odaga yaa soo dharbaxiyay xagee dharbaxooyin kaga yimaadeen xagee odaga waran kaga jira waran baa ku jira xagee kaga jira waxa soo dhawaayay qaada dhigi doona waa idin sharaxi doona soo dhawaada horta markaa tahay wiil reer Puntland ama gabar reer Puntland markaa tahay markaa tukatidba alxamdulillah so mar haddii Saciid Abdullahi Dariya madaxweyne ku yahay ayuubna halkan ku fadhiyo waxaan anigu been halkan kaba sheego been iyo faan iyo khiyaali faanka ficil baa idhe maalintii xasan lahaa loo joojin mayo baan idin maxaan idin waxaan idin tan Puntland bay ahaanaysaa midda Puntland bay ahaanaysaa xasanna maalmo ciriiriya kadib oo darbiga madaxa ku soo dhufto wuu soo laabanayaa asagoo leh waan u hogaansamayaa Puntland above the law waan u hogaansamayaa asagoo leh buu soo laabanayaa haddana maxaa dhacay waa ka isbihinaya beeshii caalamka dhaqaalihii xidhay waxaa la yidhi waa khasab inaad Puntland noo keentid oo saxiixeeda noo keentid oo madaxweynaha noo keentid oo wax la yiraahdo wadar ogol aad keentid mashaariicda Puntlandna waa khasab inay qaadato ayaantii hore Puntland doorashada ku jidhay ayuu mashaariic badan beesha caalamku wuxuu ka dhaadhiciyay Puntland doorashada ku jidhayo dani baa lacagta mashaariicda u isticmaalaya doorashada u isticmaalaya oo jeebkiisu gashanaya yaan mashaariic loo gudbin way ka yeereen doorashada hadda ku soo guuleysanay danana soo laabay hadda miiska wada hadalka waa isqarajicii loo joojin mayo dastuur baan furaya dastuurka waa tii lagu albaabay oo la yiri dastuurka iyo asagaba ma aqoonsanayma dastuurka ka dhacay asagana madaxweyne waa aqoonsanay beesha caalamku meel kasta warqad ay ka galiyeen waxa la sheekh intaan ka badan kuma dul qaadan karno Puntland waa Soomaaliya saddex meelood laba meelood kamid ah Soomaaliya Puntland baa ama saanaho Soomaaliya marka la kala baro Puntland baa haafa kama ayada baa loo baahan yahay Puntland daadan hayn khayr Allah ku siiyo waxa ku siimin marka cadaanku muxuu sidaa u leeyahay ma Puntland buu jecel maya kelmadda ay qora waa indhahay waa sheegay xamarta uu xukumayo koonfurta uu xukuma xasan ama madaxweynaha hore ka ahaa adeer moos iyo camba ka baxa gaalka lacagtan deeqda bixinayana deeq ma aha lacagtan deynta bixinayana ku xisaabtay ma moos iyo camba iyo saytuun iyo babaay iyo isbaandhays ma rabee shidaal iyo oil iyo saliid buu rabaa wadanka shidaalka iyo oilka iyo saliidda lacagtan lagu bixinayo deynta ay ku jiraan Puntland baa boqolkiiba 90 inta ceel gaalka iyo tuboosaas ilaa 15 ceel oo markii la qiyaasay 3 trilyan oo shidaal ku jira oo barmiil 3 trilyan 360 trilyan doctor gaaladu cadaanka ah deynta waxay ku bixinayaan waa shidaalkaas lacagta laga heli doono way markuu soo baxo ee shidaalka ku bixin mayaan moos baqbaqa iyo cambe iyo saytuun iyo isbaandhays iyo yaanyo ku bixin mayaan iyo yaanyada ka baxda jawaan ku bixin mayaan sababtoo ah kulligoodba halkaan cambe bila ura waa yaala cambe iyo moos iyo shidaal waagaas meel kasta ka baxaan buuraha dushooda ka beeraan buuraha dhagaxa
annaga borodhay xamaleen dushooday cambaha ka beeraan nimankan caddaanka ay lacagta bixiyeen marka cambe iyo moos loo baahana shidaal bay u baahan yihiin shidaal bay lacagta waxay rabaan hadhow deynta ku qaataan shidaal bay rabaan shidaalkiina xagee yaalla puntland buu yaalla puntland hadhow maxay dhihi kartaa annagu deyntan mar la qaatanay maan ogeyn soomaaliyana kama mid nihin xasan iyo reer koonfur u raadsada gaalku marka cawaan ma cambe iyo moosna wixiisa ku bixin mayo shidaalna ku bixinaya gaalkii baa marka afka soo jiriyey xasan oo yidhi xasan annagu cambe iyo moos iyo qare wax kugu siin mayne meesha khayraadka iyo dahabka iyo shidaalku yaal dahab iyo shidaal meesha uu yaal meesha sixin oo waa kala xalay asoo afka ka yaqsi Puntland hatta ma waran dowlad goboleedka Puntland sida sharciga muusoran leefleefkiya wuxuu la gaaray inuu yiraahdo dowladda Puntland waxaan ugu baaqayaa gobol baan ugu baaqayaa inaanu isgarabsanaa rabaa inaanu xiriirka hagaajinaa rabaa inaana waa dowladda Puntland xasan wuxuu yaqiinsaday Puntland ababdalow qof kastoo reer Puntland hooyo kastoo reer Puntland yaa aba kastoo reer Puntland wiil iyo gabar reer Puntland marna baa ka shakiyo inta dan halka ku fadhiyo xasan buste inuu ku gato ha ka fakay inta ay halkan ku fadhiyana in laga dhaadhiciyo xasan baa qurux badan ha ka fakirin taa ka fakay Puntland la isku halayn karo waa haysataan Puntland waxa haysataan meeshay ayadu dhigto halkan qooraha saara way qowdahay meeshay ayadu rugtas agta saa u saadho aan laga daba saari karin Puntland waxa haysataan dhihi ka dhaninkii iga dheeraga buu wuxuu Zaid qabaan wuxuu gabaygi Zaid qabaan ee adiyaal ku rooyay wuxuu yiri masalaha nimaan ii dhigayn midig ma saaraya ninkii aniga iga maarmi kara uma muraad yeesho muska xasan busta galay aqlada kama miciin moodo muska xasan busta galay aqlada kama miciin moodo dad isku filan xeeb leh bad leh sharci leh dowladnimo leh aqoontu guryahooda taal shidaalku guryahooda yaal macdanta guryahooda yaal babayga iyo haddii aan lagu rooyahay mooska ha lagu qaato deyn ha lagu qaato maalmo ka hor maxaad ogeydeen xasan oo leh masaajida cidna loo joojin mayo maantana dowladda Puntland baa ka dambaysa dhubuq hore dhaban haystan bay leedahay muxuu doonayaa marka haddeer wuxuu doonayaa inuu dhulka isdhigo dani u yeero daniyow shir ila gal hay ka dhacday ummadda aan tusba inaanu ummadana wuxuu rabaa iska dhaciyo dani baa wax diidan dani waa ninkii gogosha ku dhawaaqay ninkii gogosha inuu taga diidayn asagu ahaa markuu xaaladda ku jiray ahayd loo joojin mayo labadii madaxweyne hore waa farmaajo iyo ninka la yiraahdo mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed waa ninkay la hadleen oo ugu baaqeen wada hadalka oo u tageen oo markii dambana ay statement soo saareen inuu diiday wada hadalka barnaamijkaas ii sheegay iskaasi yaa wada hadalka diidana markuu maanta arkay oo uu oodan galo soo oodo faysmay oo albaabada laga soo xirtay oo dhalbaaxada iyo Puntland u tag ay ku soo dhacday way soo qaad Puntland dowladda Puntland وإلى ما هذه الدولة بتلعب أفكار وكراي. كوي كأجيت كوي دواي عناصرتها. بتلعب لا تشين ما أكان عن حسي. هذا العاو كهر لا هاي دولة بنتلان أبب اللون. دستوركو ودستور كيجي بنتلان دستور كذا حكومة. دولة دولة الصومال ما بقى دستور بنتلان. هذا الدولة هذيك هبلا عطا هذيك بودا ماتا. No قبحنا. oo hadii aan ku rooyo xamar fadhiya oo qarax harsanaya inuu anaga wax loo yeeriyo ma dhici karto ilaahay xaqiis ilaahayna ma ogola anaguna ma ogolin hal wataabo ilaahay kuma oran wax ka liita dabaga ilaahay dabaga kuma oran ilaahay wuxuu ku yiri dadka wanaagsan raac wadada wanaagsan raac si aad meel wanaagsan u tagti laakiin ilaahay kuma oran kool dhuuq dabaga qarax ku xiran yahay ilaahay dabaga kuma oran ilaahay muxuu ku yiri dadka wanaagsan raac si ay meel wanaagsan kula tawdaan aniguna aan meel wanaagsan ku geeyo wax wanaagsan qabo ilaahay ku laakiin ilaahay kuma oran koola dhuuq daba gal ilaahay kuma oran xasan iyo xukuumaddiisa waa maafiyo koola dhuuqina waa waxa ogeyd markabka halka Turkiga maraya
دبل دقيقة سنقول ودقيقة أنت وياك حمر صوبشتين يري صحيح يبان هرقلين كوا سياسيين وهذا السياسي هو اللي بانها ريدك حسن باوريف وربانت أنت اللي حكوا الدماء يا أخي إنه نوخ هذا الله إثيوبيا أسكبوسين إنه إثيوبيا بنت مشاكين إنه إثيوبيا أسكبوسين واحد من دول ده قلنا يحرد عنده إثيوبيا أسكبوسين إثيوبيا بقصهيني إثيوبيا أم بقصهيني ساسا بنت وشاكنا ورما أدنو كان بيان شيء كلام دولة مركب كان هيدا عليه ساعة يسافر السعودية إثيوبيا يوم يسافر إنترنت كاستعمالي هذا بقصة إنسان الله إنه يومها حلق ما لا يعني بعياله ضد ما لا يعني لغة ما لا يعني ضد أيقون ما قفكم بالسياسي لم بقولوا كليه يا أخي أيوب محل شيء محل عين بنت أولادك يوم الشيء سوماليا والله واقرت أنا إثيوبيا أسكبوسين النو إثيوبيا أسكبوسين النو تاني دولة نمط حسنوا ما إثيوبيا أسكبوسين النو أنا صبري سنة مر أقبل لك بقولي وحاش الدولة ما إثيوبيا صعب بوصل ما يسوي عليها إثيوبيا ده أسكعلين وهذا أسكعلين لسان ولا عيدا يوم سمايست عيدا يوم سمايست مركب هنا مركب سكوسا ويا إثيوبيا نجا علين ميزة وقبل لك تقولي ما